markaasaa ka warqabteen mudnaantii koowaad waxaanu siinay dalka nabadiisa markaa bariga galbeedka dhibaatooyinka kama jirin laakiin bariga dee dagaalada waddanka ka dhacay dhalinyaro badan oo hubaysan baa jirtay oo isu hubeeyey inay dalka daafacaan marka tallaabadii koowaad waxay ahayd inaanu dhalinyarada qaramayno ay ka mid noqdaan ciidamada qaranka hubkana qaranka lagu wareejiyo akeeyo qudhamaysideen oo dee waa ka warreyseen waa la qarameeyey hawl badanna way ku ahayd dee xukuumadda oo aan ku talagelin oo aan miisaaniyad ku jirin laakiin ilaahay mahadii dhammaan dadku iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo deegaanada iyo mas-uuliyiinta iyo wasiirada laga wada shaqeeyey iyo madaxweyne ku-xigeenka watay mashruucaas waxaanu noqday mashruuc lagu guulaystay oo qarankuna faa'iido weyn u lahaa guud ahaan baahiyaha dalku dee way badan yihiin markii aanu nimi mashaariicda aanu xukuumaddii hore saaxiday waxaa ugu weynaa aan ugu nimi wuxuu ahaa mashruuca wajaale waanu u yeedhnay qolooyinkii waday waxaanu ku qanacnay mashruucani inuu dalka faa'iido u leeyahay laba mashruuca dhulka laga samaynayaa waa dhul markii horeba 22 sano xukuumaddu gacanta ku haysay saas ma sheegayna waa mashruuca dawladda lagu wareejiyey ee deegaanku markuu ku murmay lagu wareejiyey ciidamada heshiiska waxa ku qoraa in dhulka dawladda la siiyey laakiin deegaanka odayaasha marka qaarkood waxay leeyihiin waxna lagu yiri oo la idin haynayaa marka heshiisaan baa la siinayaa laakiin heshiiska saas kuma qoraa waxa ku qoran dhulka dawladda la wareegtay waxaana marka gacanta ku haya ciidamada waxaana cadaynaynaa uun qof muwaadina oo beertiisa lagu durkayo iyo mid laga raraya midna ma jiro cabdilaahi iyo dhulkay iminka joogeen ayuunbaa lagu wareejinaya mashruucan maanta dunidu maalgashiga waddanaan soo dhaweyni ma jiro waxaa kuwa lacagta haysta kenida haddaad 300 ku sideeto maanta dhalasha lagu siinaya turkiga waa la mid ingiriiska waa la mid maraykan waa la mid marka inaguna dee dal Soomaalina waynu dhahay $20 milyan waa nimanbaynu waa gashanaynaa meesha intaasoo sannadoodna waynu joogno waxba kalama inaan soo bixin marka mashruucaasi deegaankana dee wuu badbaadinayaa horumarna wuu keenayaa farsamooyin casri oo beeraha lagu beertan waynu ka dhaxlaynaa mashruucana marka ugu dambaysa qaranka lagu wareejinaya dawladda yeelanaysa marka waxaan qabnaa gabilay nasiib bay dee u yeelatay mashruucaas waana mashruuc muhiim ah marka waana mashaariicda ugu waaweyn ee dalka laga hirgelin doono marka gobolku waan rajaynaynaa wixii inay sidaa u fahmaan lana soo dhaweeyo wixii dee dadkana la qanciyo oo wax loo sheego haddii la yidhaahdo arrimaha kale gobolka annagu mudnaanta waxaan siinaynaa xukuumadda cusub waxaa qofka muwaadinka noloshiisa kor u qaadaya qofku maanta baahiyiisa koowaad waxaa ka mid a biyaha iyo laydhka iyo caafimaadka iyo waxbarashada marka mudnaanta kuwaasaan siinaynaa laydhku waxyaaba ugu qaalisan buu kamid yahay maanta nolosheena sababtuna waxa weeye waxaynu ka dhalinaa diesel adduunkuna maanta wuu ka baxayo waxyaabo kale laga dhaliyaa dabka marka imarka waxaanu goosanay siyaasad ahaan in nidaamkeena dhalinta dabka maalgashi loo doono marka imarka tijaabadii koowaad waxaan ku guulaysanay gobolka saaxil oo imarkana la siiyey $20 milyan
horena loo siiyey ilaa $10 milyan inaan ku tijaabino in qiimaha uu isku bixin karaa ay tahay 20 senti halkaan doonayno inaynu gaarsiino dalka oo dhamina waa bartaas gabiley weli maalgelin xukuumadeed iyo mid qaran ma iman marka dabka la eego laakiin shirkadaha dabka wada hadal baan la galnay baritaan waxaan ku dhawaaqi doonaa qiimo cusub haddii la yiraahdo biyaha wasiirada iyo gobolka intuu warbixinta wayna siiyeen idinkuna hore noogu sheegteen in gobolku aanu biyo macaan haysan marka insha Allah sida ugu dhaqsaha badan waxaan u bilaabaynaa eelashii aan ballan qaaday ee biyaha macaan soo saarayay Gabiley muddo kooban oo ku dhamaan doona haddii la yiraahdo jaamacadda waan suuraysanay maanta gudoomiyaha jaamacadda iyo gudoomiyaha boardkaba baahiyo badan bay qabataa jaamacaddu laakiin ta ugu muhiimsan marka waa meesha hoolka oo dhowrkii sano ugu dambeeyana qabiyaha balamo hore badanna loo qaaday marka waxaan isla garanay wixii ka sheegi doonaa in hoolka loo dhammaystiro jaamacadda haddii la yiraahdo waxyaabo kale baahida jaamacadda iskolba sidee u suurta gasho ayaan eegaynaa haddii la yiraahdo ballamaha aanu qaadnay wadada allay baday way ku jirtaa ku qoran barnaamijka siyaasadda xisbiga imaka aragtuulka wixii ka dhimanna waanu dhammaystiraynaa barnaamijka xisbiga iyo xukuumaddana way ku jirtaa in wadada la sameeyo oo dhowriyo dalku wadooyin badan buu u baahan yahay laakiin horena waan u sheegay waxaa ku yidhi wadda aanan lacagteedii haynin ama aanan imaka ku dhiiran dhagax dhigi maayo laakiin waxaa ku tala gashaan waddadaa ku qoran barnaamijka iyo waddooyinka kale ku qoranba insha allahu waa fulinaynaa haddii la yidhaahdo waxaan gobolka kolley mashaariic kalena waa jiraan laakiin berri baan u dayn doonaa intayda kale khudbadda waxaan u dayn doonaa jaamacadda xilligeeda dhammaan waan u mahadnaqayaa odayaasha iyo salaadiinta iyo cuqaashaba dalku wuxuu u baahan yahay inaynu midnimadiisa aynu kow inoo ahaato waxaa laga yaabaa gobolku dee u fara badan yahay Gabiley arrintii gobolka intii hore waxay ahaan jirtay hadal laakiin waxay doonayaan inuu ficil u bedelo waxaynu u baahannahay waxyaaba ka horeeya in gobolnimadu dee markiiba la ansixiyo waxaa ka mid ahaa ilaa xukuumad berigaan baarlamaanka joogay anigu waraaq baan qoray mar xukuumadda u qoray berigaan baarlamaanka joogay aan leeyahay dhammaystira arrintii kala xadaynta gobolada iyo degmooyinka si gobolka Gabiley loo ansixiyo marka cabdana uu jooga ismaaciilna uu ahaan jiray wasiir daaqiliga u garanaya si loo sharciyeeyo gobolka ama degmada waa in xuduudihii la ansixiyaa marka arrintaa waanu hirgelin doonaa waan dhaqan gelin doonaa markay dhammaatana Gabiley dee gobolnimadeeda way helaysaa haddii alla ka dhigo waxaan cali baad ishaaray wuxuu yidhi 15